siyaad barre ina yar buu ahaa ilaa 9 jir buu ahaa meelaha geel baa ka lumay siyaad barre dhigta wuxuu ka maqli jiray niman ay isku qolo yihiin oo isku reer yihiin baa talyaaniga u tageen dabatana askar baa la qolo beredweyne meel la yiraahdaa buu joogaa talyaanigu ninka wax qora shaqo dadka siiya liira wax la yiraahdaa la qaataa siyaad barre geel markuu ka lumay wuu baqday wuxuu sir waa lagu dili doonaa uu soo carray beredweyne yimid dhiisayga gurigiisu webiga dhinaciisu ahaa dabatana wuu soo ag fadhiisan niman Soomaaliyeed u shaqeynayay buu niman shaqan doonaya maxaa doonaysaa inay koox shaqan doonaya wuxuu yiri talyaaniga baa loo sheegay wuxuu muxuu doonayaa koox shaqo muxuu taqaanay waxba wuxuu dhiniyo waxaad ku tiraahdaa webiga ayaa rahu habeenkii ku ciyaar kama seexdo lacagan ku siiyay ma aaminsiin karaysa caawa oo soo jeedaysa siyaad barre balada ilaahay talentka iyo maskaxda uu siiyay baan idinka sheekeenayaa in ay Soomaalida ku yar tahay 9 jir buu hawligiina webi mo arag wuxuu uu dhegta ka maqlay oo ilaahay talent ahaan u siiyay in waxa la yiraahdo rahu marka quruurux lagu tuuro intuu sanqadha maqlaya aanu hadlin ee usnabo ballidu ku bartaan filaya laakiin talyaanigaas uu ka waayay Soomaali ka aamusiya hurdalaanta uu rahu ku riday quruurux buu soo urursaday jawaana marka uu in yar joogaba webigu ku daadiyaa oo kaga sanqariya habeenkii waayay sanqadh iyo ciwaayay talyaanigii subaxii uu yiri wuxuu war inankii maxaa dhacay halay tamaan maqlin waxa la yiri yarkii baa loo yeeray waxa war maxaa dhacay maxaad samaysay waxa sameeyay wuxuu Soomaaliba waa kii ugu horeeyay wuxuu intaas oo nin Soomaaliyeed ba weydiiyay waxaan iskaga qabtay raaso inankaas xalilay horta halkaas ka bilaabay 1935 na dagaalkii talyaaniga ee ka dhacay wardheer iyo ka dhacay ee talyaanigu ka qaaday Ethiopia ayuu la socday isagoo askari ah oo dhibooga ka soo baxay siyaad barre alifkii ugu horeeyay waxa lagu siiyay libaax buu dilay libaaxii dagaalkii dadkii dhimanayay abaarna way ahayd jilaal bay ahayd hilibkoodii uu bartay dabeetana nimankii askarta ahaa talyaaniga oo hilib iyo wax walba sita ayuunba habeenba ma dabkaane markay in yar dagaalamaan meel dhow bay degaan ayuu soo dhacay nin buu ka qaataaba ama iyagoo dabada marayay ninka dilaa libaax dad cunab waxa xabadana way la waayay oo habeenkii buu soo dhacay oo lama helay bariga xabad qorigu xabad kaliyaale in badan la cabeeyaabo afka bahal laga dhirbaaxo siyaad barre wuxuu ana dilay talyaaniga maxaad siinaysaa al darajan ku siinaya bari alif siyaad barre libaaxii dad cunka ahaa wuxuu sameeyay laba oodood buu isdaba dhigay ooda saraa loo tisay wuxuu siyaad barre la tismaayo qoyar baa la isdaba dhigayaa buu ooda ko labaad baa la isdaba dhigayaa ta koowaadna waa la disay buu si uu soo boodo tan hoose ee labaadna sidii buu sameeyay siyaad barre labada oodood halka uu ku soo dhacay ayuu galay markuu soo dhacay ee uu ku soo dhacay hortiisa ku soo dhacay siyaad barre uu ku hubsaday alifka koowaad halkaas lagu siiyay ha ka qaban ingiriisku markii uu 42 qabsaday dalka askartii baa booliiska ingiriisku uu wareejiyay wuxuu ku wareejiyay military royal military buu ku wareejiyay British Royal Military ayuu ku wareegay 10 ka sanadoodna waxa military buu siyaad barre ingiliista 6 bilood ayuu macallinkii kaga yaabay oo uu siiyay shahaado ku siiyay waliba tan la yiraahdo Queen English la yiraahdo mucjisay ku noqotay ninkii talyaaniga ahaa ninkii ingiriiska ahaa macallinka oo ahaa adlasta u dhigay shaqaalihii talyaaniga oo dhan baa si talyaaniga looga masxo English loo wada dhigay wax la wixii ingiriis doonayay inuu shaqeeyo ee talyaanigii laga uu kala wareegay English buu bilaabay English ku hadli jireen waxa Queen English buu ahaa ka kaalay siyaad barre maalintuu dalka qabsaday waxa uu sameeyay kaliya waxa uu abaabulay 67 buu ninkani ayuu damcay inuu dalka qabto oo hamadiisa gashay inuu nimankan dalka ka qabto caadada kaliyana waxa ay musuqmaasuqa iyo xornimadii oo aan loo dagaalamayna musuqmaasuq iyo qabyaalad dib loogu noqday taasoo ninkaas ka muraad dilaacay ilaahayna uu ku guuleeyay waxa ninkii koowaad ee Afrika iyo Asia iyo Latin America in military ee inqilaab military meel ku qabsaday ee 3 nin ku dilay bal cid kala soo sheega kii ugu soo xigay wuxuu dilay 2900 qof buu dilay 3 nin oo waliba 72 buu dilay aan markuu dalka qabsanayay aanu dilin sida ku ogeydeen nabadgelyada uu ku qabsaday waa ogeydeen military waxa ma diidayo kaligi taliyo ahaa taa ma diidayo dhibteeda weylaada kaligi taliye uma diidayo dagaalkii 77 markay dawladii dagaal ku jabto way dawladdaas way sacashishaa taana ma diidayo khaladaadka noocaas oo kala ah ma diidayo laakiin runta waxaan ka sheegay wuxuu siyaad barre qabtay siyaad barre nabadgelyada wuxuu ku sugay daraawiish
iyo ciidankeenii ayuu dalka geliyay xuduudaha militariga u saaray 3 militarina wuu kala sameeyey oo goolwadayaashii dalka gudihiisa ilaaliya iyo kuwii cashuuraha oo turbataariya la yidhaaho iyo booliiskii oo CID la yidhaahdo iyo NNST oo militarigii uu ka soo wareejiyey oo xuduudaha iyo nabadgelyada dalka ilaasay sida KGB-da taasuu sameeyey iyo militariga oo xuduudaha u raray iyo meelaha dalka laga soo geliyo nabadgelyadii gudaha iyo dabadaba horta 4 arrimood buu kala sameeyey wuxuu siyaad baran sameeyey wax la yidhaaho musuqmaasuqi oo markaa inoogu badnaa oo ka maantana inaa haysta 100,000 goor afar laamay musuqmaasuqa wuxuu sameeyey oo buu sameeyey 3 group aan midna mid ogeyn oo haddana wada shaqaynaya oo kala shaqaynaya buu sameeyey oo kala shaqeeyaan ninna waxba samayn karin wuxuu sameeyey waa dil ninka shilin ummaddu leedahay cunaa ayuu soo rogay 3 way wada shaqaynayeen nimanka la yidhaahdo maxaa ahayd nimankii la odhan jireen odadko guruuba la daba dhigayay cid gaara baana ka shaqaynaysay shilin cid cunto waa la waayay musuqmaasuqi siiroo buu ka dhigay baa ninkii taa igu diidaya ha yimaado hana igala doodo waa kow maantana waa ogtiin halkuu musuqmaasuq marayo waa dhibaatooyinka inuugu weyn bay ka mid tahay siyaad barre wuxuu sameeyey qabyaaladii iyo qaraabakiilkii wuxuu shaqada waa laga erayaa waana 3 bilood 6 bilood oo xadhiga ninka qaraabakiil lagu qabtay qof ku qora ee lagu qabto wuxuu sameeyey siyaad bare secretary-ga wasiirka secretary hoos dhigay secretary-gana xoghayo hoos dhigay xoghayahana wuxuu hoos dhigay nin dawladda ka socda iyo hoos dhigay oo hoos ula shaqeeyay soo hoos dhiga nin ku dhacay karaya ma jirin wasaaradda shaqaaluhu sameeyey wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha cid walba way ka koobantay guddida dadka qoraya dadka imtixaan ka qaadaya taana muxuu ku xallilay 1970 ayuu xallilo kaliya 1971 uu hirgeliyay arrimahan aan ka hadlay idin kala hadlayo oo dhan uu hirgeliyay